madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu la hadli doono haddii Donald Trump uu sameeyo waxyaabo lid ku ah bulshada Mareykanka marka uu xilka ku wareejiyo maruu hadalka jeediyay kadib shirkii dhaqaalaha ee Asia Pacific ee ka dhacay dalka Beirut. Mr. Obama wuxuu sheegay in Trump uu siin doono fursad ah inuu kala shaqeeyo horumarinta siyaasaddiisa. Obama ayaa intaas ku daray in qasab ku noqon doonto inuu la hadlo haddii uu madaxweynaha cusub uu qaado talaabo khalkhal gelinaysa xurriyadda asaasiga ah ee ka jirta Mareykanka. Obama ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in culayska iyo mas'uuliyadda uu leeyahay xafiiska ay ku qasbi doonaan madaxweynaha cusub inuu wax ka bedelo siyaasaddiisa. Trump ayaa xilligii ololihiisa sheegay inuu meesha ka saari doono heshiisyo badan oo ay ka mid tahay heshiiska ganacsiga ee u dhaxeeya dalalka ku yaala badweynta Pacific, balse Obama ayaa ballan qaaday inuu ka hortagi doono